إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii tafsiirka qur-aanka kariimka ahaa waxaanu maraynay aayadda kow iyo labaatanaad min suurati albaqara qaala allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha nnaasu dadow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiin caabuda alladii kii khalaqakum idin abuuray waaladiina kii caabuda min qablikum idinka dadkii idinka horreeyay abuuray lacallakum tattaquuna likay tattaquu sidaad u cabsataan min cadaabihi wasakhadihi aad ugu baqdaan cadaabkiisa iyo caradiisa alladii kii jacala yeelay lakum idinka idin yeelay al arda dhulka idin yeelay firaashan gogol idinka dhigay dhulka wasamaa binaa'an samadana saanqaaf u yeelay wa anzala dejiyey min asamaa'i kor maa-an biyo ka soo dejiyey fa akhraja soo saaray bihi bisababi ilmaa biyaha sababtood dartood ku soo saaray min athamaraati mirooyin wax ka mid a risqan lakum ay marsuuqan lakum siduu idinku arsaaqo falaa tajcaluu ha u yeelina lilaahi allah andaadan kuwa wax la mid ah oo nidigiisa ka yeela walxaal antum idinku taclamuuna aada og tihiin alla subxaanahu wa tacaalaa halkan wuxuu ku caddeynayaa waxdaaniyadiisa iyo uluuhiyadiisa iyo nimcada addoommadiisa uu u nicmeeyey iyo ku-xildheeraasho uu ku xildheeraaday allah subxaanahu wa tacaala nimcooyinkiisa daahirka iyo baatinka nimcooyinkiisa qarsoon iyo kuwa muuqda iyo ilaahay dhulkuna uu yeelay gogol oo iyo buuro oo u yeelay iyo samadan saanqaaf inuu ku sameeyey ayuu allah subxaanahu wa tacaala ugu waramaya halkan yaa ayuha nnaasu dadow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiin caabuda alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray waaladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyey caabuda allihii abuuray lacallakum tattaquun likay tattaquu si aad allah ugu baqdaan oo min cadaabihi wa sakhadihi caradiisa iyo cadaabtiisa aad ugu baqdaan alladii kii ka bedelo jacala lakum idin yeelay al arda dhulka firaashan gogol idinka yeelay wasamaa'a samadana kor binaa'an saanqaafkeela samaa waxaa lila kullu maa calaaka wa adallaka wax kastoo kaa sarreeya haddana ku hareeb ama halkan waxaa samaa loola jeedaa waa daruurta waaye halkaas sama waxaa loola jeedaa daruurta ama cirka wasamaa'a samadana ka yeelay binaa'an saanqaaf wa anzala soo dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maa-an biyahaasoo fa akhraja ka soo saaray bihi bisababi ilmaa biyahaas sababtood daraaddoodna ku soo saaray min athamaraati mirooyin wax ka mid ah risqan lakum ay marsuuqan lakum siduu idinku arsaaqo falaa tajcaluu ha yeelanina lilaahi allah ha u yeelanina dadow
andaadan wax lamid ah walxaal antum idinku taclamuun aad ogtihiin. alla subxaana wa tacaala waxaa aayadaha qur-aanka kariimka aayaddii ugu horreysay ee lagu amro dadka ay ahayd awalu aaya oo amar dadka lagu siiyo waa aayadan ucbuduu caabuda. amarkii ugu horreeyey ee qur-aanku soo dega halkaas ayuu ahaa, ucbuduu caabuda. nahyigii ugu horreeyey qur-aankana waxaa waaye waa aayadan falaa tajcaluu lilaahi andaada, waa nahyigii ugu horreeyey qur-aanka. ucbuduu rabbakumna waa amarkii ugu horreeyey qur-aanka lagu soo dejiye. marka halkan xadiid saxiixeyn ku yaal cabdullahi bin mascuud oo nabi sal allau alay wasalam ka warinaya wuxuu yidhi rasuulka al ayaa la weydiiyey dembi keebaa u weyn, ayu dembin acdamu cinda allah, qaala wuxuu yidhi nabi sal allahu alay wasalam an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqaka, inaad allah ka dhigato oo ka yeesho wax lamida inaad samaysato oo ilaah kale la caabudo, midaasaa dembi ugu weyn ayuu rasulka sal slam yidhi. xadiid kaleeto oo dufayl ayaa riyooday, wuxuu ku riyooday asigoo yuhuud la fadhiya. kadiba waxaan ku dhaho yuhuudi idinka waa fiicnaan laheedeen haddaad iska day laheedeen cuseyr ibnullah, cuseyr waa inanka ilaahay. sidoo kale wuxuu yidhi waa fiicnaa ayagana waxay ugu jawaabeen dufaylow idinkana waa fiicnaan laheedeen haddaad iska day laheedeen waxa aad dhahaysaan oo ah maa shaa allahu wa shaaa muxammadun. kadib waxaan soo muriyey riyadoo ku jira dufayl koox oo ansaarta ka mid a. kadib waxaan dhahay yaa tihiin idinka, waxay yidhaahdeen ansaar ayaan ahna. waxaan ku dhahay waa fiicnaan idinka waa fiicnaan laheed haddaad iska dayn laheedeen ereyga aad dhahaysaan oo ah masiix ibnullah, masiix waa inanka ilaahay, haddaad iska dhaafi laheedeen aaday u fiicnaan laheyd. ayagana waxay yidhaahdeen haddaad iska mu'miniin haddaad iska dhaafi laheedeen maa shaa allahu wa shaaa muxammadun, waa fiicnaan laheyd. waagii ayaa baryey, nebiga ayaan u imid, waa u sheegay. kadib wuxuu yidhi qof maa u sheegtay? haa, dad kale waa u sheegay. kadib sal slam wuu istaagay faxamid allah wa atnaa caley, allah ayuu ku mahdi woona ammaanay. kadib wuxuu yidhi uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu fa ina dufaylan ra'aa ru'yan akhbarahaa biha min akhbari axadikum. dufayl ayaa riyooday, riyadaasna wuxuu u sheegay dad idinka mid ah. wa inakum qultum maxaadhisi kalimatan kalimad kaana ahaatay yamnacuni mid ii diidays kada oo kada waxaas wa anhaakum canhaa. hadda kadib falaa taquuluu maa shaa allahu wa shaaa muxammadun, hadhihina maa shaa allahu wa shaaa muxammadun, walaakin quuluu dhaha maa shaa allahu waxdah, hadduu allaha awoodda leh ou doono keligiis dhaha ee muxammadunka dhaafa. halkaas shirki inuu soo galo ayaa la diidaa. soomaalidana waxyaabahaas qaar eradaas way ku badan yihiin. maanta sidaasaan sameynaa hadduu rag iyo rabbi yiraahdo, hadduu rag iyo rabbi maxaa iska gala. sidoo kale caawa xali waa badbaade, hadduu eygaan ahaan lahayn ma badbaadi lahayn. waa shirki, eyga i badbaadiye waa shirki. marka waxaa la rabaa inaad tiraahdo eeyaha wax ma badbaadiye, allah wax badbaadiye. waa inaad allah le wax walbuu tiirisaa, asile tala saarataa. qaala tacaala ilah wuxuu yidhi subxaanah yaa ayuha nnaasu dadow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiin caabuda alladii kii caabuda khalaqakum idin abuuray waaladiina kii caabuda min qablikum idinka horreey dadka idinka horreeyay abuuray lacalakum tattaquuna likay tattaquu si aad allah ugu baqdaa min cadaabihi wa sakadihi alladii kii jacala lakum idin yeela alarda dhulka firaashan gogol idinka yeelay wasamaa samadana binaa-an saanqaaf idinka yeelay wa anzala soo dejiyey min asamaa'i kor maa-an biyo ka soo dejiyey fa akhraja soo saaray bihi bisababilmaa biyaha sababtood ku soo saaray min athamaraati mirooyin risqan lakum ay marsuuqan lakum soo idinku arsaaqo falaa tajcaluu ha yeelinina lilaahi allah ha u yeelinina andaadan wax lamida
والحال إذنكو أنتم آتهين تعلمون كو أب أو قرنا إني وحاس ذنبي أتهي والله سبحانه وتعالى وسن أقلين قال تعالى إلى وحير سبحانه وإن هدي كنتم آتهين في ريب كو شك كدحسغا مما وحي نزلنا أن سود الجني على عبدنا دونكين أن كسود الجني فأتوا لإمادة سورة لإمادة من مثل المنزل وحان سود الجني وحلا مدى لإمادة وادعوا ويرتا شهداءكم شهددين من دون الله سكديس ويرتا إن كنتم هداتهين صادقين كورون شيئا فإن لم تفعلوا hadda ka hor ma samaynin walan tafcaluu weligiin ma samayn doontaan fattaquu iska jira annaara naar iska jira allatii naartaasoo waquuduhaa lagu shiday annaasu dadka walxijaaratu iyo dhagxaanta uciddat waxaa loo diyaariyey naartaasi lilkaafiriina dadka gaalada. alla subxaanahu watacaala halkan wuxuu kaga hadlayaa nebigiisa iyo waxyaabaha gaalada ay ku hadlayaan oo ah shakiga ay gelinayaan wax allah nabigiisa uu kusoo dejiyey. marka wuxuu leeyahay alla subxaanahu watacaala la imaada wax addoonkeena kusoo dejin wax lamid haddaad run sheegaysiin, shuhadadiina u yeerta oo acwaantiina waxay idin kaalmeena u yeerta. sidaasuu ku fisay cabdullah bin cabaas, shuhadaa'akum ay acwaanakum, acwaantiina u yeerta. qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi subxaana wain kuntum hadaatihiin fii raybin kuwa shaki ku sugan mimaa nazalnaa waxaa soo dejinay xaggiisa ka shakisan calaa cabdinaa addoonkeena kusoo dejinay fa'tuu la imaada bisuuratin suurad la imaada min mithli lmunazali waxa aan soo dejinay wax lamida la imaada. wadcuu u yeerta shuhadaa'akum acwaanakum ay qowman aakhariina yusaaciduunakum calaa dalika, qowm kale oo idin kaalmey arrintaas idinka kaalmeeya u yeerta. sudii wuxuu yidhi can abi maalik isagoo shurakaa'akum u yeerta ay istaciinuu kaalmaysta biilaahatikum ilaahaydiina fii daalika yamuduunakum wayansuruunakum, ha idin dheere ha idin siyaadiyaan hana idin gargaaraan. mujaahid wuxuu ku fasiray udcuu shuhadaa'akum qaala naasun yashhaduuna bihi yacni xukmu fusaxaa, dadka fusaxada leh u yeerta. wadcuu u yeerta shuhadaa'akum shuhadadiiniyo min duuni illaahi alla sukadiisa keyrkiisa u yeerta in kuntum hadaatiin saadiqiina kuwa run sheegaa. fain lam tafcaluu qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi subxaana fain lam tafcaluu hadda ka hor ma samaynin walan tafcaluu weligiin ma samaynaysaan fattaquu iska jira annaara naar mimaa nazalna calaa cabdina ayaa loola jeeda cabdina ay yacni muxamadan nabi muxamed sal allahu alay wasalam ayaa loola jeedaa. fain lam tafcaluu lan nafi ta'biidiya walan tafcaluu fain lam tafcaluu hadda ka hor ma samaynin walan tafcaluu ay lan nafyu ta'biid fi lmustaqbal ay walan tafcaluu dalika abadan weligii ma samay doontaan walan tafcaluu ma samay doontaan weligiin fattaquu iska jira annaara naar naartaasoo waquuduhaa lagu shiday annaasu dadka walxijaaratu dhagxaanta uciddat waxaa loo diyaariyey lilkaafiriina gaalada ayaa loo diyaariyey. naartaas waxaan lagu shiday dhagxaanta iyo dadka bini-aadanka ayaa lagu shiday. qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi subxaanah wain kuntum hadaatihiin fii raybin kuwa shaki ku dhex sugan mimaa diinkii nazalnaa aan soo dejinnay calaa cabdinaa addoonkeena aan kusoo dejinnay nabi maxamed ah sala allahu calayhi wasalam fa'tuu la imaada bisuuratin suurad min mithli lmunazali waxa aan soo dejinay wax lamid ah. wadcuu u yeerta shuhadaa'akum shuhadadiinii acwaantiinii u yeerta min duuni illaahi allah sukadiisa in kuntum hadaatihiin saadiqiina kuwa run sheegaa. qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi subxaanah fain lam tafcaluu hadda ka hor ma samayn walan tafcaluu hadda ka hor ma samaynaysaan
weligiin fattaquu iska jira annaara naarta iska jira allatii naartaasoo waquuduhaa lagu shiday annaasu dadka jirkooda lagu shiday walxijaaratu dhagxaanta lagu shiday uciddad waxaa loo diyaariyey lilkaafiriina gaalada ayaa loo diyaariyey naartaasi. qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi subxaanah wabashir u bishaarey nabiga suubanow aladiina kuwii u bishaarey aamanuu xaqa rumeeyey wacamiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wanaagsan anna lahum ay bianna lahum inay u sugnaatay jannaatin beerageeda leh tajrii ee qulqulayso jannaadkaasi min taxtihaa hoosteeda lanhaaru webiyaala kullamaa markasta rusiquu la irsaaqa minhaa xaggeeda min tamaratin miro wax ka mid a risqan ay marsuuqan xaalo laga irsaaqaayo qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa kani rusiqnaa waanu la irsaaqnay min qabl hadda ka hor wa utuu waa lala yimid bihi samaradaas waa lala yimid mutashaabihan xaale iyo kuwo isku eg walahum waxaa u sugnaaday fiiha dhexdooda aswaajun xaasas mudaharatun la dahiray walxaal hum ayaga fiiha dhexdooda khaaliduuna ay yihiin kuwo ku waarayo oo aan ka bixayn abadal aabadiin ku jirayo. allah subxaanahu watacaala markuu soo sheegay gaalada iyo ashiqada iyo kuwii xumaanta ku jiray waxa loo diyaariyey oo ah cadaab iyo ciqaab ayuu allah subxaanahu watacaala dhanka kale wuxuu ka hadlayaa sucadada liibaanta iyo rususha ay rumeeyeen iimaankooda saalix ahaa iyo waxyaabahaasoo dhan markii ay sameeyeen ayaa allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay mu'miniinta ayuu ka hadlaya. qur-aanka ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sunnadiisa ku dureersatay marna waxaa laga hadlaa khoof cabsi, marna waxaa laga hadlaa rajo oo dadka la rajo gelinaa, mar waxaa laga hadlaa gaalo iyo munaafiqiin, mar waxaa laga hadlaa mu'miniin. gaalada munaafiqiinta waxa loo diyaariyo cadaab iyo ciqaaba laga hadlaa, mar waxaa laga hadlaa mu'miniinta waxa loo diyaariyey iyo muslimiinta oo wanaag iyo janno iyo kheyr ayaa laga hadlayaa. qur-aankaaba sidaas ah oo macnaha qur-aanka tasmiyatu lilqur'aan almathani ayaa loo magac daray calaa asaxi alaqwaali alculamaa oo ah in mar laga hadlo iimaanka, mar laga hadlo cagsigiisa iimaanka kufriga ah iyo cagsigiisa in laga hadlo, marka sucadada laga hadlo dadka liibaan, marka laga shaqaada dadka xunxun cagsigu hadda laga hadlo. qur-aankaas sidaas mar waxaa laga hadla dadka xunxun, mar dadka wanaagsan, mar janno, mar naar, mar waa lagu cabsi gelinaa, mar waa lagu farxad gelinaa. qofka markuu rajada iyo khoofka inuu udhexeeya qofka bayna arajaa walkhoof, qofka markii la yidhaahdo naaraa jirto dadka saasay u baabi'ine way feenanaysaa sidaan waaye markii la yidhaahdo oo isku naxo oo dhaha bas waaye adiga rajada ma lihid dembigaada waa badan jira oo quusto ayaa haddana la farxad gelinaa oo rajo la gelinaa. ilaahay qafuur raxiim waaye, ilaahay jannada soo bila xisaab dadkaas ku gelinaa, haddana waa rajaa la gelinaa oo marka hor isdhiga raba rajadan wax walba ilaahay qafuur raxiim u is yiraahdana dhinacan kale laga tusaa. marka qofka waxaa laga bayna arajaa walkhoof inuu udhexeeyo. qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi subxaanah wabashir u bishaaray aladiina kuwii aamanuu xaqa rumeeyey wacamiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wanaagsan anna lahum ay bianna lahum inay u sugnaatay jannaatin beerageeda leh, jannaaskoo tajrii ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal, webi qamraa, webi caanaa, webi malab ah, webi biyo ah. kullamaa markasta rusiquu la irsaaqaayo minhaa xaggeeda laga irsaaqaayo jannaadkaasi min thamaratin mirooyin wax ka mid a risqan ay marsuuqan xaalo laga irsaaqaayo qaaluu waxay leeyihin markastoo wax la siinayo oo mirahaas la siinayo waxay leeyihin dadka ahlu jannaa qaaluu waxay leeyihiin haadaa kani alladii kii waaye rusiqnaa nagula irsaaqay min qablu hadda ka hor markaa adduunyadii joognay kii nagula irsaaqi jira way leeyihin
من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وقصورها وغرفها geedaheeda guryaheeda saraha dhagax maanta ka samaysan iyo qolasheeda ayaa loola jeedaa hoosteeda webiyaashaas qulqulaya marka waxay leeyihiin haadaa rusiqnaa min qablu ay fi dunya adduunyadkii nagu risaaqi meelaha adduunyadan kusoo cuni jirnay leeyihin markaasaa waxaa la leeyahay markaasay malaa'igtu leedahay fataquulu malaa'ika kullu mid kasta fi lawni waaxidun midabku waa isku mid wadacmu mukhtalif dhadhankana wuu kala duwan yahay midabka waa isku mid oo midabkii adduunyadu leeyahay amaa dhadhanka waa ku kala duwan yahay oo midkan aakhirada hadda aada joogtaan ayaa aada u mac sidaasay leeyihin kuluu cuna fa ina allawnu waaxidun wadacmu mukhtalif cuna midabku waa isku mid dhadhanka waa ku kala duwan yihiin wa utuu waa lala yimid bihi wixii samaradii mutashaabihan kuwo isku eg oo yushbihul abu caliya wuxuu yihi oo taabiciga yushbihu bacduhu bacda gobolkiis gobolka kale ayaa lagu shabahay wayaktalif fi dacmi wuxuu kala duway laakiin dhadhanka ibnu jariir wuxuu yidhi bal ta'wiilu dalika rusiqnaa min qabl min thimaari janna min qabli hada lishiddati mutashaabih bacduha base isku egin daraaddeed ayay u leeyihiin kuwii oo kale wa wa utuu waa lala yimid mutashaabihan xaalo ay yihiin kuwo isku eg walahum waxaa u sugnaaday fiiha dhexdeeda aswaajun xaasas mudaharatun la dahiray sidoo kale meelahaas marka la siiyay xaasasay leeyihin oo la dahiray oo xuurulciin ah laa yushbihu shayun fi ljannati fi dunya ibnu cabaas wuxuu leeyahay laa yushbihu mashabahayo shay-un shay mimaa fi ljannati jannada wuxuu ku sugan mashabahayo fi dunya adduunyada ilaa fi lasmaa magac basa ku shabahi karaa ee dhadhankii iskama shabahayaan sidoo kale xaasas la dahiray ayaa u sugnaatay oo la siinaa xaaskaas maxaa laga dahiray waxaa laga dahiray mujaahid wuxuu yidhi ibnu cabaas iyo ibnu abi talxa waxay ku fasireen mudaharatun min alqadari waaladaa wasaq iyo dhib oo dhan laga dahiray ayay ku fasireen mujaahid laakiin wuxuu ku fasiray min alxaydi waalgaa'idi waalbawli waalnukhaami waalbusaaqi waalmaniyi waalwaladi aa laga dahiray oo ah min alxaydi xayd ayaa laga dahiray oo xeydku ma dhacaayo sidoo kale waxaa laga dahiray saxaro waxaa laga dahiray bowl oo kaadi ah waxaa laga dahiray nukhaamo oo xaaka ah waxaa laga dahiray busaaqo oo candhuuf ah waxaa laga dahiray mini waxaa laga dahiray oo shahwaa iyo walad iyo caruur ayaa laga dahiray qataadana wuxuu ku fasiray mudaharatu min aladaa waalma'tham wax kastoo xun iyo dembi aa laga dahiray wa fii riwaayatin canhu laa xayda walaa kalf mashaqo iyo xeydna midna ma ahaan cadaa iyo xasan iyo daxaaq iyo abi saalix iyo cadiya iyo sudine sidoo kale ay sidaas ay yidhaahdeen qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi subxaanah walxaal hum ayaga fiiha dhexdooda khaaliduuna ay ku waarayaan way iskaga jirayaan wax haddii kumeel gaar ay taha lagaa saarayo wax micnaha malaha laakiin weligood way ku jirayaan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi subxaanah wabashir u bashaaray nabiga suubanow aladiina kubii u bashaaray aamanuu xaqa rumeeyey wacamiluu camal faray asaalixaati acmaasha suusuuban anna lahum ay bianna lahum inay u sugnaatay daraaddeed jannaatin beero geeda leh jannaadkaasoo tajri ay qulqulayso min taxtiha hoosteeda nahaaru wabiyaal kulamaa markasta rusiquu la irsaaqo minhaa min aljannati jannada xaggee laga irsaaqo min thamaratin miro
رزقا أي مرزوقا مثل إرزاق مر لغي إرزاقه قالوا وحيلين أهل الجنة هذا كان الذي كي رزقنا نقول إرزاقي من قبل هذا كون كان دويد الجوني كي نقول إرزاقي وكلويان وأتوا لليمد به بالثمرات متشابها كو اسكو اج حاليهن ولهم حاوسغناته فيها دحدودا أزواج حاسس مظهرة للظاهرة وهم أي فيها دحدودا وحي هذين جنadaas dhexdeeda waxay ku ahaadeen khaaliduuna kuwa ku waarayo oo laan laga saareenin qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi subxaana ina allaha alle laa yastaxyii kama xishooda an yadriba inuu ka dhigo mathalan tusaale maa shay wax ka mida maa shay bacuudatan kaneeca ah famaa fowqaha iyo wixii ka koreeya fowqa albacuudati bacuudadaas ama kaneecadaas wixii ka sareeya fa ama aladiina kubii aamanuu xaqa rumeeyey fayaclamuuna waxay ogyihiin annahu sha'nigu ama wuxuu uu yahay annahu shaygu muxuu yahay alxaqu xaq inuu yahay way ogyihiin waa annahu tusaaluhu dheh annahu tusaalaha u celi fa ama aladiina kubii aamanuu xaqa rumeeyey fayaclamuuna waxay ogyihiin annahu tusaaluhu alxaqu xaq inuu yahay dhab uu yahay min rabbihim rabbigooda xaggooda ka yimid wa ama aladiina kubii kafaruu gaaloobay fayaquuluuna waxay leeyihiin maadaa maxeebaa araada allaahu la doonay bihaadaa kani mathalan tusaale mathalan ay min jihati mathalan tusaale xaggiisa yudilu wuu ku lumiyaa mathalkaasi bihi mathalkaasi kathiira in fara badan oo ah min alkaafiriina waalmunaafiqiina wayahdii wuu ku hanuuniyaa alleh bihi mathalkaasi kathiiran in badan oo min almu'miniina ah wamaa yudilu allah ma lumiyo bihi mathalkaasi ila alfaasiqiina kuwa faasiqiinta maahine aladiina kuwii yanquduuna burinaye cahd allaahi ballanka alleh bacda miithaaqihi la adkeyntiisa ka gadaal wayaqdacuuna waxay yihiin kuwa gooya maa amara allah wuxuu allah amray bihi maagaasi an yuusala inay xariiriyaan wayufsiduuna wayufsiduuna way fasahaadinayaan fil ardi ay calal ardi dhulka korkiisa ulaa'ika kuwaasi hum ayaga alkhaasiruuna ayaga ayaa ah kuwa khaasiriin ah oo hogay allah subxaanahu watacaalaa markuu kasoo hadlay arrimahaasi iyo in allah la caabudo ayuu tusaale ayuu sameeyey ibnu sudi abi malik can abi saalix ibnu cabaas mura ibnu mascuud iyo rag kaloo saxaabada ka mida waxay yidhaahdeen lamaa daraba allaahu haadayni lmithlayni lilmunaafiqiin labadan allah wuxuu u yeelay tusaalooyin munaafiqiinta yacni mathaluhum ka mathali aladi istawqada naaran iyo aw ka sayibin min asamaa'i sidaasoo kale ayuu allah subxaana wa tacaala tusaale ugu dhigay qaala tacaala ilah wuxuu yidhi subxaana ina allaha alle laa yastaxyii kama xishooda an yadriba inuu ka dhigo mathalan tusaale maa shay bacuudatan kaneeca ah famaa fowqaha iyo wixii ka koreeya fowqa albacuudati bacuudada ama kaneecada wixii ka sareeya laba qaabaa lagu fasiraa famaa fowqaha iyo bacuudada kaneecada wax ka sareeya oo macnaha maxaa waxa ka sareeya maxaa kamid ah waxaa kamid ah dubaabki oo ilaahay suurat lxaj wuxuu ku sheegay yaa ayuha nnaasu duriba mathalun fastamicuu lah ina aladiina tadcuuna min duuni illahi lan yakhluquu dubaaban walow ijtamacuu lah wain yaslubhum addubaabu shay-an laa yastanqiduuhu minh dacufa aldaalibu waalmadluub halkan sidoo kale suuratul cankabuud allah subxaana wa tacala wuxuu ku mitaalay mathalu aladiina ittakhaduu min duuni illahi awliyaa kamathali alcankabuuti ittakhadat beyta
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هل كان سورة البقرة تفسير كأمرها أنه إله سبحانه وحكمته إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها كان يعي وحكسر أيها الله سبحانه وتعالى وكمثالي وحكسر وحكمده كالذباب تحسق أما تحسق والعنكبوت يعار عارض كان يعاد أيها كوين فما فوقها مركز معكم معناه فما هو أكبر منها كالذباب والعنكبوت لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. مركان ابن جرير السياسة دورته مركان دهنا وايه الله وحده تعالى كدي فما فوقها مركان كفسرنا فما دونها معنيه ويكبدل ميسايو أو وحين نقولها وحي كناعة كير كناعة وحي كير فما دونها أي نقولها أو محاكم فما فوقها فما دونها وحاكم ذا فما دونها في الصغر والحقارة كما إذا وصف الرجل باللوم والشحم. سوك النبي صلى الله عليه وسلم حجري لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا شربة ماء. هدي الدنيا الله سبحانه وتعالى أكتيسا مرك ميزان لسارو إلا إكال لهد جناح بعوضة قرب كناعة قال كما عابلهن هلك بشبيه الدنيا مركويب كلين ليتا قرب كناعة مردم إلا تسع كمردم الدنيا هو عاد وير مركا وحات مثال كاس وحاوى فما دونها قرب كناعي وين كناعة وين قرب كناعير مركا قاسنا وحاوى فما دونها مركا كفسرنا فما فوقها أنا مركا كفسرنا وحي قرب وحي كناعة وين ذباب تحسقي يو عارضي والله سبحانه وتعالى صورة كلا عنكبوت يو صورة حج كمثالي. فأما الذين كبي آمنوا حق الرميي فيعلمون وحي أجيهن أنه تصاله الحق ربنويه أم ربهم ربي وذا حقه ذا كيمد. وأما الذين كبي كفروا قالوا بي فيقولون وحي ليهن ماذا محيبا أراد الله الله دونه بهذا كان مثل من جهة مثل تصالحان محول دونه يضل الله ودميا به مثل كل ميا كثيرا إن فربضا من الكافرين والمنافقين ويهدي الله هنونيا به مثل كهنونيا كثيرا إن فربضا وما يضل من المؤمنين وما يضل الله ملومي به مثلك إلا الفاسقين قوة الصالح ما هنا ورك الله سبحانه وتعالى سداس أي منافقين تا أو كل مياه هي كفارتا مثل كاسن حكوها نونيا مؤمنين تا قال تعالى لو حير سبحانه الذين فاسقين تلقى الله الذين فاسقين ينقضون وكوبريا عهد الله بلمت الله بعد ميثاقه لا أتكينتي سكذا ميثاق علينا بلن دار لو أتكي لا أتكينتي سكجدال ويقطعون ويقون يعني ما أمر الله وحو أمري أو به ما ياسي أن يوصل إلى حريريان قراودي وحي إلى حريريو ويفسدون ويفسهادنيان فاسقين في الأرض أي على الأرض في بمعنى علاوة دولك كركيس يفسهادنيان أولئك كواسي هم أيغا الخاسرون وكوا خسارة كواسي وكوا خسارة مركا يضل به كثيرا ومنافقين تي مشركين تي كفارت أي لولا جيدا يهدي به كثيرا مؤمنين تا أي الله كهنوننا أركا قال تعالى إلى وحير سبحانه
إن الله الله لا يستحيي كما حشوضة أن يضرب إنه كدغو مثلا تصالح ما شيء بعوضة كناعة فما فوقها يوحي ككرية وكسرية فوق البعوضة بعوضة أما كناعة وحا كسرية فأما الذين كوبي آمنوا حق رمي فيعلمون ويؤجهن أنه مثلك أم تصالوه الحق إنه ربيها من ربهم ربي وذا حقه كيمد وأما الذين هايش كوبي كلا كفروا قالوا بي فيقولون وحي ليهن ماذا محيبة جس ماذا محيبة أراد الله لدوني بهذا كان مثلا من جهة مثل تصالة لنعيس محو لدوني أو كناعي وحس محو كربا يضل الله كل ميا به مثلك كثيرا إن فربضا أو من المنافقين والكافرين ويهدي الله كهنونيا به مثلك كثيرا وحفظ فربضا أو من المؤمنين وما يضل الله كمل ميا به مثلك إلا الفاسقين كوا داعد الله كبحي مويان الذين كوا فاسقين تو داعد الله كبحي ينقضون وكوا برينايا عهد الله بلنتيسا بعد ميثاقه لا أتكينتيسا كقدال بلنتاسي ويخدعون وكوا قوينايا ما شيء أمر الله وأمر به ما أن يوصل إن لحريريو ويفسدون ويفسادين في الأرض أي على الأرض روح كركيسا أولئك كواسي هم أي كليود أي الخاسرون كوا خساري اوغي قال تعالى الى وحير سبحانه كيف سيديبا تكفرون آدكو كفرينيسان بالله الله والحال كنتم آتين أمواتا كوا دنتي فأحياكم وإذن نولي ثم كذب يميتكم إذن دلا ثم كذب يحييكم إذن نولينا ثم كذب إليه حق ترجعون أدو الله بنيسان الله سبحانه وتعالى أسيقو حجيسنا jiritaankiisa iyo awoodiisa iyo inuu khaaliq yahay adoomadiisa ku tasarrufayo ayuu wuxuu ka hadlay sida ay u diidayaan alla jiritaankiisa iyo inay la caabudaan alla qeyrkiisa oo shirki la yimaadaan waxa wuxuu ka hadlayaa inuu macnaha uu dilay haddana nooleeyay haddana أو إلى القرآن يسوع أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أيقو وحبأنهن ووحجرهن الله وحجر كدي بل فيري أغلى حمد قال وحجرهن أدوه وحجر كاردي هدو كدلو إنو كسون وليكرن سيد كل عكرتها تصالي البلفيرية موبيل أتصو قدتي وكاه الله نينكا سمايا وعبد الله شديها أما ماشي حلو سمايا فرسمة موبيل أدو قيسي وحاترنيه موبيل كان ويقاه الله بي موبيل عصب سمايا هض أبور حكله هذا مواد كان حقيقة الدنيا كان واقع وواليه كان أشمعه موبيل يسميه ولا قرته موبيل عصب أبور هاد اسكو هاد كذب ألفه مركب وواليه كان جوج موانتا جوج ماتا وكله لكن ده ترى موبيل كان نيه يسميه علدس أقوارك وكو سمينا لكن موبيل كأصليا بأسيك كان وابا نعم متكل أبور هاد يسميه اسكو أدي marka waa waaleey ku leey marka mobilkii oo ninka sameynay abuuri kar sameys ku soo yaqaan Allah subhanahu wa ta'ala maxaa u malaysaa marka oo adiga wax bajirin lam yakun shay'an madhkuran shay la shay aadan ahayn ka dhigay insaan oo nool inuu ku soo saarayo mashaka kaaga jira kun fayakun waay أسوء بجرين أو ضوابا كسب إنسان الله ضوابا صودينس من صلصال من حماء مسنون من صلصال ضوابا صودينس من حماء ضوابا مدو مسنون مركا أو بعث موجل المنالصة هذا مرد من كنا تراب وعظاما أين لا مبعوثون إليه وأقل حمد أيوة وحجرين كده
mana soo nooleynay leeyihiin. marka taas Allah subxaanahu wa tacaala ka hadlaa shay wax jira ka dhigto waa adag tahay, laakiin shay wax jira laga dhigay sameyntooda waa fududa, sida hadda ninkaas moobeelada sameynayo kale. qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi subxaanah kayfa sideebaa takfuruuna aad ku kufrinaysaan walxaau billaahi alle waqad walxaal cadaa ibnu jariir wuxuu leeyahay cadaa iyo ibnu cabaas waxaa laga wariyey kuntum amwaatan fa axyaakum, waxay ku fasireen amwaatan fii aslaabi aabaa'ikum, waxaad aheedeen kuwa dhinto allah ayaa idin nooleeyay. waxaad aheed marka wuxuu ku fasiray amwaatan fii aslaabi aabaa'ikum, waxaad tihiin kuwa dhintay dhabarada aabiyaashin kuwa ku jira oo dhinta aheedeen, oo sababta bii miniya iska aheedeen. ilaa markii hooyada aabaha jimaaca u dhaco, hooyada kalxamanka yakhruju min bayni sulbi wataraa'ib, waxaa laga soo saaray kalxamanka iyo lafdhabarta, dhabarka gadaal. marka dhabarada aabihiina ku jirteen. lam takunuu shay-an, waxba maadan ahayn xataa khalaqakum, allah idin abuuro. uma kadib yumitukum uu idin dilaa mawtata alxaqi, dhimasho dhab ah. uma kadib yuxyiikum uu idin noolena xayiina yabcatukum, marka idin soo saara. qaala markaasuu wuxuu yidhi wahiya mithlu, waxay la mid tahay qowluhu tacaala oo alla yidhi amatana thnatayni wa axyaytana thnatayni, rabbiyow laba jeer ana dish, laba jeer waana nooleys. rabbanaa amatana thnatayni wa axyaytana thnatayni. marka waa caqli xumada iyo jaahilnimada gaalada. qaala tacaala ilah wuxuu yidhi subxaanah kayfa sideeba takfuruuna aad ku kufrinaysaan billaahi alle wa kuntum waxaad aheedeen amwaatan kuwa dhintay faaxyaakum, allah ayaa idin nooleeyey. uma kadib yumiitukum, asiga ayaa idin dilaa. uma kadib yuxyiikum, asiga ayaa idin nooleynaa. uma kadib ilayhi xaggiisa ayaa turjacuuna la idin celinaa oo aada u laabanaysaan. uma kadib ilayhi xaggiisa turjacuuna ayaad u laabanaysaan. qaala tacaala ilah wuxuu yidhi subxaanah huwa aladii huwa alle alladii allihii khalaqa abuuray lakum liajlikum, idinka daraaddiin u abuuray maa shay dhammaantiis fil ardi dhulka ku sugan jamiican dhammaantiis. uma kadib istawaa alla wuu kor noqday ila samaa'i samada fasawaahunna, alla wuxuu ka dhigay 7 samaawaatin 7 samo ayuu samadii ka dhigay. walxaal huwa asiga bikulli shayin shay kasta caliimun uu ogaal badan yahay. halkan alla subxaanahu wa tacaala markii uu ka soo sheekeeyey dalaalada khalqigiisa waxa tusaaya iyo waxa nafsadooda ay arkayso, sheegitaankaas ayuu haddana wuxuu alla subxaanahu wa tacaala sheegaa daliil kaleeto oo tusaaya waxa ay arkayaan, oo ah inuu allah awooddaas leeyahay, samadaas iyo cirkaas koonkan korkeena allaha cirka dhulka abuuray, inuu bili-aadan oo ka liita oo ka tabar daran inuu nooley karin ayuu alla subxaana uu miithaalina oo leeyahay cirkan 7 samo ah, dhulkan 7 dhul ah, tiir celinaya lahayn cirka, dildilaac iyo dayactiran u baahnayn, allahaas abuuray ma bili-aadan oo noolee waay. marka halkaasuu allah subxaana wa tacaala ka tusaaleyna huwa asiga allah alladii allihii khalaqa abuuray lakum liajlikum daraaddiin u abuuray maa fil ardi dhulka waxa ku sugan jamiican dhammaantood. uma kadib istawaa alla wuu kor noqday ila samaa'i samada xaggeeda fasawaahunna, alla wuxuu ka dhigay 7 samaawaat 7 samo. oo alla wuxuu abuuray khalaqa aljibaala fiiha, buuro ayuu abuuray, wa aqwaatun ahluha, wuxuu abuuray ehelkeeda ayuu abuuray, washajaro geedkeeda ayuu abuuray. wamaa yanbagii lahaa fii yowmayni, uma habboona inay u sugnaatay 2 maalmood fi thuluthaa walarbaca. xiina yaquulu asigoo odhanaya qul ainakum latakfuruuna biladii khalaqa alarda fii yowmayni watajcaluuna lahu andaada dalika rabu lcaalamiin.
marka Allah subxaanahu wa tacaala xaafidka halkan wuxuu yidhi fafi hadihi tani dalaalatun waa tusin calaa annahu tacaala ibtidaaa bikhalqi alardi awalan. tan waxay tusaysaa alla subxaana wa tacaala abuuritaanka dhulka iyo cirka inuu ku hormaray dhulka uu abuuray awalan, uma kadib khalaqa abuuray asamaawaati samada sabcan todoba samo uu abuuray. wahaadaa kani sha'nu lbinaa'i waa arrin dhismo an yabdu-a inuu ku bilaabay bicimaaratin cimaaradooyin asaafilah, uma kadib oo hoose, uma kadib acaaliha bacda dalik, kadibna kuwo sarsara oo dhis. oo alla subxaana wa tacaala aayado kale wuxuu ku yidhi a antum idinka miyaa ashaddu ka adeeg badan khalqan abuuritaanka am isamaau ama samada ayaa banaahaa samadan dhisitaankeeda iyo waxeeda ee idinka yaa ka dhib badan yaa ka adeeg badan abuuritaankiina samadan dhisideeda yaa adeeg badan oo laleeyahay. rafaca alla kor ay u qaad samkahaa jurmigeeda samadan jurmigeeda ayuu kor u qaaday fasawaaha wuuna ekeeyey wuu simay wa aqdasha wuu mugdiyey leylaha habeenkeeda wa akhraja duxaha waalarda bacda daalika intaas kadibna daxaaha wuu gogol dhulka akhraja minhaa wuxuu ka saa maaha biyado marcaha daaqeeda. marka ma idinkaa ka dhib badan mayo. saxiix bukhaari ibn cabaas waxaa la weydiiyey su-ila can haada bicaynihi midan ayaa la weydiiyey fa ajaaba wuxuu ku jawaabay biana alarda dhulka khalaqad in la abuuray qabla samaa samada ka hor dhulka ayaa la abuuray samada lagu xijiyo cabdullah bin cabaas yiri wa ana alarda dhulkana inamaa wax kala maaha daxayta waa la gogolay bacda khalqi samaa samada markii la abuuray kadib. marka xadiid abi hureyre weri nabi sal slam ayaa ku qabtay gacantiisa kadib wuxuu yidhi khalaqa allaahu turba yowma sabt sabtiga ayuu abuuray caradan, buuraa wuxuu abuuray maalin axada, geedaha wuxuu abuuray wa khalaqa aljibaala fiiha yowma alaxad maalinta xadan wuxuu abuuray buuraha, wa khalaqa ashajaru fiiha yowma alithniini geedahan wuxuu abuuray maalin isniina, wa khalaqa almakruuhu waxa la nacna wuxuu abuuray yowma athuluthaa maalinta talaada, wa khalaqa nuuru nuurka wuxuu abuuray yowma alarbicaa, wa batha فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة في بين العصر إلى الليل. marka xadiiskaasna wuxuu yidhi halkaana saxiixu muslim iguna waana qariib waqad takalama cali bn madani iyo bukhaari iyo keyrkiis iyo min xufaad kamid wajacaluu waxay yidhaheen min kalaami kacab wa ana aba hureyra samicahu min kalaami kacab alakhbaar wainama ishtabaha calaa bacdi aruwaat fajacaluu marfuucan waqad xarara dalika albayhaqi. والحال هو أسيق بكل شيء قدير مد أوده وكروي الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إلى وحر سبحانه هو أسيق الذي الله خلق أبوري لكم لأجلكم دراد وأبوري ما شيء دمانتيس في الأرض لوك كسوغا جميعا دمانتيس ثم كذب استوى الله وكر نقضي إلى السماء كر فسواهن الله وكردقي 7 سماوات تضوى السماء عركي كردقي والحال هو أسيق بكل شيء عليم وقال بدينها. قال تعالى إلى وحر سبحانه وإذ قال واذكر حسن نبيك صوبانو إذ وقت قال أويري ربك للملائكة ملائكة كويري إني أنيق جاعل وحييلا في الأرض لك كييلا خليفة كوا اسكب بدلا. قالوا وحير هذين ملائكتي أتجعل ميا يليسا الله فيها أرض دحديث في الأرض لك دحديثا منقف يفسد فسهادنا فيها أرض دحديثا أو بالكفر والمعصية كفر معصية كفسادنا ويسفك الدادنا الدماء ديجدا ونحو الحال أنا نحن آننا نسبح مذ كنا زهنا والحال أنا نحن آننا نسبح كوكو نزه بحمدك حال أما هذا كله هنا ونقدس أنك ظاهرين لك أذيك الله.
qaala wuxuu yidhi alle innii aniga aclamu waxaan ogahay maa shay laa taclamuuna aadan garanayn. alle subxaana wa tacala halkan wuxuu uu waramaa gallada uu siiyey ibni aadamka iyo malaa'igta sida ugu heebaysteen oo ugu xusay agtooda ugu sheegay mala-i laclaa fii iijaadihim. qaala tacaala ilah wuxuu yidhi subxaanah wadkur xus nabiga suubanow yaa muxamed nebi maxamedow xus id waqti qaala uu yidhi rabbuka rabbiga lilmalaa'ikati malaa'igtuu ku yidhi innii aniga jaacilun waxaa yeelaa fil ardi dhulka dhexdiisa khaliifatan kuwo isku bedela, ay qowman yakhlufu bacduhum bacda, qowm isku bedela gabalkood gabalka kale, qarnan bacda qarnin, qarni ka qarni, ama jiilan bacda jiilin, jiil ka jiil, sida ilaahay qur-aankiisa aayad kale uu ku yidhi wahuwa aladii allah asiga jacalakum wuxuu idin yeelay khalaa'ifa fi l ardi, iyo sidoo kale wayajcalukum khulafaa al ardi, waxaa la idin yeelaa khulafa ardada. iyo ilaahay wuxuu ku yidhi suuratul zukruf walow nashaau lajacalnaa minkum malaa'ikatan fi l ardi yakhlufuun, allaba duu dooni lahaa wuxuu yeeli lahaa dhexdiina idinka xaggiina hadalka malaa'igta ah maxaa u abuureysaa ma ahan ictiraad, haadaa wa qowlu malaa'ikati haadaa laysa calaa wajhi lictiraad, looma daliilsi karo cala allahi alla eegsoo horjeesanaa, walaa calaa wajhi lxasad, xaasidnimo biniaadan ku qabaanna ma ka wadaan, kamaa yatahamu bacdu lmufasiriin, sida mufasiriinta qaar ay ka muujiyeen tuhun ahaan. marka sidaasi kama ahan malaa'igta, waxay ku sifeeyeen in aysan ka hormarin qowlka